السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مفسرين قاركودي waxay sheegeen in uu nabi yacquub calayhi salaam uu noqday indoole muddo ku dhawaad 40 sano oo hindhihiisa wuxuu la beelay waayitaanka uu waayay wiilkiisa yuusuf calayhi salaam. haweenada ka mid ah ayuu sujuuda ku dhex ooyay uu allana ku dhex bariyay isagoo yidhi, ilaahayow miyaadan iigu naxariisanaynin taagdaridayda oo aadan iigu naxariisanaynin ciradayda oo aadan iigu naxariisanaynin waayelnimadayda oo aadan iigu naxariisanaynin baahida aan ku qabo. ilaahay ayaa u soo waxyooday ilan waa nebi yacquubow, cisadayda iyo weynidayda iyo ka sarayda qalqigayga aan ka sareeyay ayaan ku dhaartee wallaahi hadduu yuusuf dhiman lahaa xitaa waan ku soo noolayn lahaa. bishaaradii wiilkiisa ayaa u timid maalintii xigtay. wallaahi farjiga alle wuu ku furan yahay sida gugaaca oo kale, laakiin sabar oo ajar badan xisaabso, sujuuda ku ducayso, ilaahayna wuu ku aqbali doonaa ducadaada. naxariis iyo nabadgelyo xagga alle ka ahaatee dushiina ahaato walaalayaal. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.